dagaalamayaasha al-shabaab ayaa falal argagax leh saacadihii la soo dhaafay la sheegay inay ka geysteen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo ay dileen wiil aabihiis iyo sidoo kale dad shacab ah oo degmadaasi ku sugnaa waan soo gudbin doonaa oo halkan ayaa idinkula wadaagi doonaa falalka argagax leh ay geysteen dagaalamayaasha al-shabaab waxaa sidoo kale qaybtan idinkula wadaagi doonaa dagaal culus oo u dhexeeyay dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale macawiisleyda gobolka shabeellaha dhexe oo xalay ka dhacay deegaanka ama duleedka degmada aadan yabaal jab xoogan ayaa al-shabaab la gaarsiiyey sida la sheegay inkastoo weli ay haystaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waan soo gudbin doonaa oo sidoo kale qaybtan ayaan idinkula wadaagi doonaa iyo howlgallo culus oo dhowaan ku bilaaban doona dagaalamayaasha al-shabaab diyaaradihii daronisk iyo duqeymihii kala duwanaa waa diyaar sida dowladda federaalk soomaaliya ee sheegtay ka horse muuqaalkan laagsaar oo youtube-kan subscribe oo kusoo biir gambaleelka furo si aad u hesho warar iyo macluumaad joogto ah asxaabtaada kalena muuqaalka la wadaag si aad u helno saaxiibo u qurux badan sida adiga oo kale aan ku bilooway dagaalamayaasha al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay la sheegay in falal argagax leh ay ka geysteen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay keliya haystaan isbuuc oo keliya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa lasoo warinayaa in halkaasi ay ku dileen wiil iyo aabihiis iyo sidoo kale dad kala duwan oo shacab ah iyadoo jimcihii aan kasoo gudubnay 6 qofood oo 4 haween ah labana rag ay yihiin halkaasi ay ku dileen xasuuqa ay geysanayaan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la sheegay in ay dadka ay dilayaan ku eedeynayaan inay la shaqeeyaan dowladda federaalk ah ee Soomaaliya iyagoona eeday u jeedinayaan ay tahay in dowladdu ay la shaqeeyaan qaarkood waxay ku eedeynayaan inay yihiin jawaasiis u shaqeysa dowladda federaalk ee Soomaaliya wiilka iyo aabihiis ee degmada aadan yabaal ku dileen ayaa waxay ku eedeeyeen in wiilka mar uu ka tirsanaan jiray macawiisleyda degmadaas halka aabihiisna uu sheegeen ama ay sheegeen inuu ahaa nabadoonada jilba culusta ee la shaqeyn jiray dowladda federaalk ah ee Soomaaliya waxay sidoo kale qayb ka mid ah degmadaasi ama tuulooyin ku yaala degmada aadan yabaal ku dileen dad kale oo shacab ah inkastoo dadkaasi shacabka ah waxa ay yihiin aysan caddeyn dagaalamayaasha al-shabaab ayaa hadda waxa ay ku sugan yihiin degmadaasi iyagoona jilbaha u aastay tan iyo markii ay la wareegeen waxayna sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab dadka shacabka ah halkaasi degan ku abuureen cabsi xooggan oo soo food saartay cabsida ay ku abuureen ayaa waxay tahay in qof kasta oo hadla ay dilayaan dadka ay dilaanna ay ku eedeynayaan inay yihiin dad u shaqeeyay dowladda Soomaaliya qaarkood jawaasiis ay sheegayaan inay yihiin halka kuwa kalena ay ku eedeynayaan in la shaqeynta dowladda Soomaaliya al-shabaab ayaa tan iyo markii qabsatay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo aan la kulmin wax dagaalo iyo sidoo kale duqeymo kala duwan ayaa waxay hadda si gaar ah isaga beegsanayaan dadka shacabka ah haweenka degmadaasi ku sugan ayay sidoo kale la sheegay inay u geysanayaan kufsi gowrac ayay sidoo kale ka fulinayaan iyo dilal qorsheysan oo halkaasi ka dhacaya waxaana sidoo kale al-shabaabka halkaasi ku sugan dowladdu ay sheegtay in lasoo afjari doono dowladda Turkiga ayaana ciidamo keentay Soomaaliya howlgallo culus ayaana dhici doona aadan yabaal ayaan qaybtan ku falanqeyn doonaa intaan ka bixin isla degmada aadan yabaal duleedka mubaax ee degmadaasi waxaa ka dhacay dagaal xoogan dagaalkaasi waxaa soo qaaday macawiisleyda deegaanka oo is abaabulay dagaalamayaasha al-shabaab ayayna halkaasi kula galeen al-shabaab waxaa la sheegay ama macawiisleydu ay sheegeen inay kasoo bixi waayeen degmada aadan yabaal oo ay banaanka imaan waayeen waxayna sheegeen macawiisleyda in jab xoogan dagaalamayaasha al-shabaab lagu gaarsiiyey dagaalkii halkaasi ka dhacay macawiisleyda waxa ay sheegeen in khasaaraha gaaray uu aad u yar yahay balse al-shabaab weerarka iyo sidoo kale khasaaraha ay gaarsiiyeen uu yahay mid aad u culus oo aan la soo koobi karin khasaaraha gaaray inkastoo al-shabaab badi aysan soo bandhigin khasaaraha culus ay gaaray balse khasaaraha dowladda ay gaaraan muuqaalo ay ka duwan soo baahiyaan waxayna yihiin khasaarahaasi kuwa aad u culus oo aan la soo koobi karin howlgalladaasi macawiisleyda ayaa iska kaashanayay macawiisleyda oo kaliya ayaana fuliyey iyadoona ciidamadii dowladda halkaasi ku sugnaa badankood ay ka soo baxeen ama isaga soo tageen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe macawiisleyda ayaana waxa ay maqribnimadii xalay weerar xoogan halkaasi ku bilaabeen al-shabaab oo aan qorshahooda ahayn inay dagaalamaan iyaga ayaa dadka gaari jiray balse macawiisleyda markan tookadooda ayay gaadin bilaaween al-shabaab ayaana halkaasi difaac ka galay iyadoona jilbaha aastay laftirkooda oo kasoo bixi waayeen sida la sheegay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe inta ugu badan howlgallada kala duwan iyo weerarada dhaca dagaalamayaasha al-shabaab ayaa fuliyay ama lagu fuliyaa subaxdii hore ay soo qaadaan balse maqribnimo ayay macawiisleydu weerarkan qaadeen sidoo kale aboorey deegaano hoostaga iyaduna waxaa la soo warinayaa in dagaalo culus ay ka dhaceen macawiisleyda hiiraan ayaa dhankoodana weeraradaasi fuliyay sida la sheegay oo ahaa kuwa aad u culus oo qorsheysan oo aan la soo koobi karin naftirkooda dagaalamayaasha al-shabaab marka laga soo tago weeraradan ay soo qaadayaan
dhanka kale shacabka iyo dhibaato badan kala kulmaan ama la kulma iyadoona khasaaraha shacabka gaara uu yahay mid aad u xoogan oo aan la soo koobi karin runtii. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Subscribe saar bartaan, like saar muuqaalkan, sii share garay si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale bartaan ku soo biirsa aad u hesho wararkii ugu dambeeyay macluumaadka dunida.